xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qaaday markaasi sidoo kalena dhigay talaabo taariikhi ah kadib markii uu noqday ra-iisul wasaarihii ugu horeeyay ee muddaxileedka madaxweynaha la dhamaysta maadaama Xasan Sheekh Maxamuud muddaxileedkiisu uu ku ekaa 15 bisha May. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre magacaabistiisii inta lagu guda jiray 16 bishana waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha cajiibka ah in la magacaabay maalintaasi. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre muhiimad gaar ah waxay u lahayd maamulka Jubbaland. xasan sheekh maxamuud ayaana qorsheynayay markaasi sidii uu ku kala reebi lahaa maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo aan la wadi karin, waxaana uu quudareeyay sanadada ugu horeeya ee xukuumaddiisa in ay la shaqeyso maamulka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana si weyn u soo dhaweeyay markaasi. ra-iisul wasaare xamse cabdi barre magacaabistiisu waxay ahayd mid si weyn markaasi loo soo dhaweeyay, laakiin haddana waxaa muuqata inuusan noqon sidii la filayay. 4 sano xamse cabdi barre waxa uu dhamaysanayaa isagoo magacuyaal ah, waxaana sidoo kale uu noqday ra-iisul wasaare markaasi aan ku hor socon ama sidoo kale aan garab socon Xasan Sheekh Maxamuud. labada dhinacna waxay noqdeen mas'uuliyiin markaasi si weyn isaga dambeeya ama sidoo kale goobaha qaarkood aan ku tartamin. xamse cabdi barre ayaa muujiyay saaxiibtinimada iyo xiriirka qotada dheer ee kala dhaxaysa Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu sheegay inaysan marnaba suurtagal ahayn Xasan oo u taagan madaxtinimada Soomaaliya ama tartamaya inuu isagu soo tartamo laakiin mar kale yeelkeed. sidoo kale waxaa la yiraahdaa xamse cabdi barre waa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadajirka iyo cadaaladda ee GSB, waxaana taasi ay muujisay in Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi kalsooni dheeraad ah u siiyay, waxaana muuqata in xaaladda iyo sidoo kale waxyaabaha taagan ee hadda muhiimad gaar ah ay siinayaan waxyaabaha jira. laakiin xamse cabdi barre si weyn ayuu ugu guuldaraystay saaxiibadii ama sidoo kale dadkii dhari wadaagga ku ahaa siyaasadda Soomaaliya ee deegaanada daarood inuu si qasaba ama sidoo kale si wada hadal ah ugu qanciyo siyaasaddiisa. geed dheer iyo geed gaaban uma foolin inuu la fadhiisto dhinacyada marka laga reebo kulamo gaargaara uu la qaatay xamse cabdi barre, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Saciid Cabdilaahi Deni. waxaa la leeyahay ma jirto qanaacad dhab ah marka laga reebo beesha isaga uu ka dhashay ee ogaadeen. beelaha majeerteen iyo sidoo kale markaasi mariixaan iyagu ma ahan kuwa ku qanacsan xaaladda taagan, laakiin sidoo kale taageero weyn ayuu ka helay beelaha dhulmahante kadib markii aqoonsi buuxa la siiyey maamulka waqooyi bari Soomaaliya. arrimahaasi oo isku sidkan waxay noqdeen in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu noqday mid dhexda u galay xaalado isdiidan. loolanka siyaasadeed ee ka dhaxeeya siyaasiyiinta hawiye iyo sidoo kale kuwa daarood waxaa muuqata in xamse cabdi barre ay noqdeen waxyaabaha ugu badan ee cadaadiska gaarka ah markaasi siiyey. laakiin xaaladda haatan taagan iyo sidoo kale waxyaabaha qaarkood ayaa muujinaya in dhinacyada ama sidoo kale jaanibyada kala duwan ay si weyn ay isku hayaan. 4 sano ee dhammaatay xamse cabdi barre waxay u dhammaatay iyadoo markaasi xafiiska iyo sidoo kale shaqadiisa gaarka ah uusan xamse dhinac u dhaafin. waxaa aad u yaraa safaradiisa gudaha, waxaa sidoo kale yaraa safaradiisa dibadda marka loo eego inuu si weyn ula jaan qaaday xaaladaha markaasi taagan. 4 sano ee xukuumaddu waxay ahayd mid markaasi ka duwan mararka qaarkood laba ra-iisul wasaare oo isku bedelay madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud. laakiin waxyaabaha laga dhaxlay waxay ahayd in ra-iisul wasaaraha waqti dheer lala joogo ay noqon karto mid keenta xasilooni siyaasadeed. xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya la joogitaankiisii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxay ahayd mid si weyn markaasi ula jaan qaaday, iyada oo la leeyahay waxa uu markaasi quudareeyay waxyaabo badan. mar uu waqti dheer uu la joogay la leeyahay wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa. taasi waxay noqotay in albaabka ay ka saartay markii lasoo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. Maxamed Xuseen Rooble talaabooyinka durbadiiba uu qaaday waxay ahayd mid uu si weyn kaga hor yimid ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana muuqatay in uu si weyn ula jaan qaadayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale siyaasiyiinta markaasi mucaaradka ah ee banaanka ka joogay siyaasadda Soomaaliya. talaabooyinkaasi sidoo kale waxyaabuhu waxay ahaayeen kuwa si weyn u muujinayay xaaladaha guud ee taagan, laakiin dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha qulqulatooyinka ee muuqda waxa ay muujiyeen dhinacyadu sida ay isku diidanayeen markaasi. laakiin Maxamed Xuseen Rooble markaasi dadaalkii uu ka soo dhigay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa uu ku guuleystay. xamse cabdi barre 4 sano ayuu dhamaysanayaa xukunka isagoo aan mar qura Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlin dhibaatada iyo sidoo kale waxyaabaha siyaasadeed ee dadkiisu ay wajahayaan. waxaana muuqata in magaca loo bixiyey ee marxuum uu ahaa magac si weyn ay ugu dhawaaqeen mar qura beelaha isagu uu ka soo jeedo. kala qaadista beelaha ugu saameynta badan siyaasadda Soomaaliya ee daarood, mariixaan iyo sidoo kale majeerteen waxay ahaayeen kuwa dadaalka badan iyo sidoo kale qorshayaasha waaweyn muddooyinkii ugu dambeeyay gelinayay sidii meesha looga saari lahaa xamse cabdi barre.
laakiin ugu dambeyn waxaa muuqata inay guulaysatay siyaasadda iyo sidoo kale dadaalka la joogitaanka xasan sheekh maxamuud ee beelaha markaasi dhulmahanta iyo sidoo kale ogaadeen kuwaasi oo siyaasadda Soomaaliya markaasi dhawaangal ku ah marka laga amba qaado Allah u naxariistay Cali Khaliif Galeyr oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday Soomaaliya dowladii Cabdiqaasim Salaad Xasan laakiin hadda waxaa muuqata in xasan sheekh maxamuud dadaalka iyo sidoo kale qorshaha uu bixiyay ay ahaayeen kuwo isdaba socday xasan iyo xamse 4 sano ayay dhameysteen laakiin haddana wali wax ma jiraan